kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii Ileyska VOA da oo aan toddobaadkan ku eegayno kheyraadka la sheego inuu ku jiro dhulka Soomaaliya. waxaa la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay kheyraad dihin oo dabiici ah. waxay leedahay laba webi, Jubba iyo Shabeelle, oo aan laga faa'iideysan marka la barbar dhigo sida dalalka caalamku ay webiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha. waxaa kaloo ay leedahay bad uu kalluun ka buuxo iyo macdan kale. injineer yarow shariif aadan oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta, horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaraddii macdanta ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre, ayaan weydiiyey macdanta ku jirta Soomaaliya. macdantaasi way tallaa. hadda tangistana laga heli karaa. macdanta culus, macdanta laba nooc anwaac bay leedahay. kuwa dhismaha gala, kuwa oo furniture-ka gala, kuwa maaragtay oo loo adeegsado maaragtay technology-da high oo technology sida maaragtay qamar sinaaciga loo diro, cirka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira. waxaana wadanka waa yaaliin. injineer yarow ayaa dhinaca kala sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobolada Soomaaliya. gobol kastaba qeybay lagu ammaani karaa. masalan uraniumka ka soo qaata, uraniumka oo kale gobolada dhexe haddaad u fiirisid, meesha ilaahay ugu bideeyey waxba uranium weeye. ya uraniumkaas iyo gaasas kale oo aan la sheegi karin. uraniumkan quality-ga kan ugu fiican Soomaaliya waa ka maxaa yeelay de anaga geologian xilligayni markaan shaqayn jirnay kuwa value ahaan, qiimo ahaan ugu qiimo badan uraniumkan wuxuu ahaa kan Brazil iyo France haysato, Australia. haddii loo barbar dhigo marka kan Soomaaliya qiimihiis wada xadigaas marxuum maarta Xuseen Cabdiqaadir Qaasim Allah yarxamo waqtigaasaa jiri jiray. taas waa uranium. thorium aliyow geelle iyo dhulkaas oo ku jiro oo kale. masalan ka dhig even diamond-da iyo tungsten dahabka waa laba nooc wey. tungsten le dahabka cad baa la leeyahay. marka dahabkaas cad wadanka waa yaalin. maxaa la yidhahdaa baydhabo ma aha dinsoor iyo dhulkaas iyo haddii la baaro waa laga helaa macdantaas oo culeyska. copperka oo kale. copperka anaga sedimentary rocks, yani dhagxaantiyo 3 meelood bay u kala baxdaa. sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks. marka sedimentary marka dabeel ay dhacdo ama roob oo dhaco waa isku soo xaaqaya, meel godon buu isu keenaya. nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay. sanaag macdan khaas bay leedahay. Somaliland macdan khaas bay leedahay. jubbooyinkaas macdan khaas bay leedahay. macdanta lama soo koobi karo. baaka curyaha Soomaalida waxay tiraahdaa curya 140 iyo 114 curyo waay. macdan kasta mid kasta waa ka qiimo badan tahay. masalan yani piezo quartz oo kale. piezo quartz dadka geologiinta yaqaaniin reer Hargeysa ilaahay ugu bineeyay maaragtay kaas waxaba dhagxaantaas hadeertaan haddaa London aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid, maadaam tuso aad tagtid, dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa ya wadankaas waxaa laga soo qaaday Soomaaliya laga soo qaaday maadaam tuso buu yaala. beledweyne meel zona dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin. dhismahay geli karaan, siyaana sanaacaday geli karaan, decorationkay geli karaan, wax kastay geli karaan. Kismaayana waa dhulkaas waa saas. masalan ka soo qaado berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo Kismaayo iyo xeebteeda iyo majihan dhalan meel la yidhaahdo oo Boosaaso agteeda ku taalla 40 kilometer inay u jirtaan u malaynaya, oo Talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maaragtay dhowr 1 kilometer 2 kilometer dhulka hoosii laga qodi jiray. still macdankaas waa yaala, laakiin waxay u baahan ragay u baahan tahay buu yiri kii Soomaaliga wuxuu yiri hadday rag u baahan tahay. macdanta lagu sheego Soomaaliya waxa kamid ah dahabka noociisa cad iyo nooca madow. waxaana markhaati ka ah in deegaano ka mid ah gobolka Sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha. dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha Sanaag. Saciid Cabdalla Guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka Sanaag, way aragnimada u leh arrimaha deegaanka gobolka. qadka teleefanka ee magaalada Ceerigaabo ayaan kula xiriiray. degmadan Ceerigaabo oo sii jeeda dhinaca badda oo dhan inteeda badan dhulku waa dhul dahab weeyaan, macno fara badan ku jirta. dadkuna aad iyo aad dad fara badan ay ka faa'iideen, wax badan ay ka helayeen.
marka meeshu way jirtaa waa meel macdanta sida goobaha uu dahabka laga helay bay ka mid tahay. marka xogtaad ka haysaan dadkan dahabka qota ama dhagaxda qota ma dad iskooda soo abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa ma dad abaabulanba bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdanta dadku uga faa'iidaystaan. kulliba dahabka waa laga nooc waxna macdanta waa diboortiga waa wax hoose waxna waa wax iska ogada saaran oo nagtka la yidhaahdo dahabka nagtka iska bisha sida yar loo helayo ama qalab yar loo isticmaalayo loo heli karayo mid abaabishana ma jirto waa dad iyagu maaragtay iskood u shaqo tegayo oo iska foog tegayo midba wuxuu u soo helayo xilligii ha waxsiinayo waa dad ilaahay u kala saaranayo maaragtay iska sidaa weeyaan laakiin cid abaabulana ma jirto. marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan? ninka waa dahab oo dahabka caalamkeeda iibma waayo dadkii iibsanayay baa iyaguna dhex socda oo dhex maraya oo qofku markuu soo helaba markiiba waa laga iibsanayaa oo dad iibsadaa jira iyadana ganacsigii baa dhex soconaya.